hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa la dejiyay goob ammaan ah maalin uun kadib markii Israa'iil ay dalkaasi Lubnaan ku dishay hogaamiyihii Xisbullah Xasan Nasrallah. Tallaabadan muhiimka ah ayaa waxa ay muujinaysaa walaaca ay mas'uuliyiinta Iiraan xilligan qabaan, iyadoo Israa'iil ay weeraro isdaba joog ah oo ba'an ay ku qaaday kooxda Xisbullah oo ah xulfada Iiraan oo si weyn u hubaysan islamarkaana u qalabaysan marka la eego gobolka oo idil. Wakaaladda wararka ee Reuters ee laga leeyahay dalka Britain waxa ay sheegtay bishan in ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan lagu amray in ay joojiyaan adeegsiga nooc kasta oo ka mid ah qalabka isgaarsiineed ee loo yaqaano fooneeyayaasha kadib markii ay qarxeen kumanaan ka mid ah isgaarsiinadaasi oo dalkaasi Lubnaan dad fara badani ay ku dhaawacmeen, waxaana inta badan isticmaalayay kooxda Xisbullah. Lubnaan iyo Xisbullah ayaa sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay weerarkaas. Israa'iil ma aysan beenin mana aysan qiran in ay ka dambeysay weeraradaas. Iiraan ayaa xiriiro ay la sameysay Xisbullah iyo kooxaha kale ee gobolka ee taageerada ay u fidiso waxa ay kala hadashay arrimihii ugu dambeeyay ee dhacay, gaar ahaan dilkii loo geystay hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah, waxaana ay sheegeen inay ka arrinsanayaan tallaabada xigta. Sidoo kale dilka Nasrallah ee Jimcihii ka sokow waxaa isla weerarkaasi magaalada Beirut lagu dilay taliye ku-xigeenkii ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan Cabbaas Nilfurushan. Warbaahinta Iiraan ayaa Sabtidii sidaasi sheegtay. Taliyayaasha kale ee ilaalada kacaanka ayaa sidoo kale la dilay tan iyo markii uu dagaalka Gaza qarxay sanadkii hore, oo rabshado fara badanna ay ka dambeeyeen marka la eego dhinaca xuduudaha oo si gaar ahna u dhex marayay Israa'iil iyo Xisbullah. Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee Sabtidii waxa uu sheegay kadib markii ay Israa'iil ku dhawaaqday in Nasrallah la dilay, masiirka gobolkan waxaa go'aamin doona xoogaga iska caabinta. Xisbullahna waxa ay kaga jirtaa safka hore, ayuu yiri Khamenei. Waxaa kaloo intaasi uu ku daray dhiigga shahiidku ma noqon doono mid aan loo aargudin, isaga oo ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroor diiq ah oo lagu xusayo geerida Xasan Nasrallah. Geerida Nasrallah waxa ay dhabarjab weyn ku tahay Iiraan. Iiraan ayaa waxa ay awoodeeda ku fidisay dalalka Lubnaan, Ciraaq iyo Yemen. Ururka Xamaas ayaa dagaal kula jira Israa'iil ku dhowaad 1 sano tan iyo markii dagaalyahanadooda ay gudaha u galeen Israa'iil 7 Oktoobar. Xisbullah ayaa intii uu socday dagaalka Gaza waxay isku weydaarsanayeen Israa'iil rasaas xoog badan dhinaca xadka Lubnaan, waxaana ay marar badan sheegtay in aysan joogsan doonin ilaa ay xabad joojin ka dhacda Gaza. Iyadoo Xisbullah ay ku adkeysanaysay go'aanadaasi ayaa haddana weeraro xoogani weli Israa'iiliyiintu ay ka wadaan guud ahaan dalkaasi Lubnaan. Kadib markii uu dhacay weerarkii fooneeyayaashana, mid ka mid ah saraakiisha ammaanka ee dalka Iiraan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in uu socdo howlgal ballaaran oo ay wadaan ciidamada ilaalada kacaanka oo lagu baarayo dhammaan aaladaha isgaarsiinta. Waxa uu sheegay in inta badan qalabkan ay yihiin kuwo guryo lagu sameeyay amaba laga keenay Shiinaha iyo Ruushka. Sarkaalkan waxaa kaloo uu sheegay in Iiraan ay ka walaacsan tahay in ay ku dhex jiraan dad jawaasiis ah oo u shaqeeya Israa'iil oo weliba ka mid ah shaqaalaha mushaharka qaata, kuwaas oo inta badan fududeeya bartilmaameedyada lagu hayo madaxda sarsare ee ilaalada kacaanka. Bayaan kale oo Sabtidii soo baxay ayaa madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu door weyn ku lahaa dilkii loo geystay hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah.